السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وحالة جمال عثمان وحنا هاي قدومية دقمة الحاد مينيابوليس. وحنا شوقنا مانتا براين كويل سنتر عن كوكبناي community resource fair أو مركي سنة كي لبعض عن كوكبنا إنه وحنا قرناي إن حفيسة الدولة أسكو كان هالميل يضدك عاوية ومدة بدنا نلصو حرة حفيز كيجا وور 6 baahidooda badan bay noo sheegaan marka waxaan garanay inaan meeshay degan yihiin aan u nimaano waxa maanta naga soo qayb galay xafiisyada dawladda ka mid ah City Minneapolis xafiisyo ka mid ah caafimaadka waxa noo yimid federaalka waxa nooga yimid Senator Klobuchar iyo Senator Tina Smith iyo Ilhan Omar oo Congress-ka ah oo dadka badan immigration ka caawiya baahi badan bay ummadana sheegtaa intaas oo aad u baahan laga caawiyo marka waxaan garanay intaan mataqaana hal meel in isku keeno almost waxa yimid about 30 government offices iyo non-profit sida dadka ilmaha caawiya legal aid-ka oo lawyerada free lawyerada hadii guriga lagu dhibayo kaleeto energy assistant we even had a free tablet oo ilmaha siinana education ku saabsan waxa kale oo aan qabanay park board-ka noo yimid oo programyada sanadkan ka shaqeynaya oo markii labaad oo aan qabanay aad baan ugu faraxsanahay maanta dadka ka soo qayb galeen waxaan rajaynaynaa badanaa inaan ummadda mar walba u dadaalno oo resource-ga iyo baahidooda aan mar walba ka fargarayno marka aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabadan oo ah markii labaad ama sanadkii labaad ee la qabto aad iyo aad ayay muhiim u tahay council memberka ama gudoomiye Jamaal Cusmaan maadaama dad badan ama bulshada ama waalid ha noqdaan ama ganacsatada ha noqdaan ama dhalinyarada ha noqdaan guud ahaanba bulshadu maadaama adeegyo badan ay u baahan yihiin baahi badan ay jirto su'aalo badan ay yimaadaan wuxuu hal meel isku keenay dhammaan hay'adaha xafiisyada dawladda kuwa magaalada Minneapolis kuwa degmada Hennepin iyo kuwa federaalka ahba sidoo kale xafiisyo kale waxa yimid iyo ganacsato kale oo wixii su'aal ah oo loo baahan yahay ama barnaamijyo qaarkood anigu gaar ahaan waxaan meesha u yimid waxaa jooga xarumaha Minneapolis Park and Recreation Board-ka oo xaafad walba oo Minneapolis ku taala xarun ayaan ku leenahay adeegyo waxaan bixinaa qoysaska iyo dhammaan dhalinyarada iyo dadka oo meel walba adigu bulshada guud ahaanba waan la shaqeynaa marka miis ayaan anaga laftigeena xafiiskayga u yaalay sidoo kale waxaa meesha la keenay macluumaad dhalinyarada kaliya ma aha dadka waaweyn qoysaska dadka ganacsiga leh guud ahaan marka waa meel la isku wada keenay dhammaan macluumaadka baahidu ay bulshada u qabto waan uga mahadcelinayaa maaragtay council member Jamaal inuu sanad walba oo sanadkii labaad ay tahay inuu munaasabadan u qabto marka waan idinka mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka i daawanaya waa mahadsantihiin annaga waxaan lahaa Metro Youth Diversion waxaan ka shaqeynaa xaafadda sida Riverside si aan u caawino dhalinyarada maandooriyaha qaadata oo aanu wacyigelino waa iska wacyigelin marka waa services aanu dhalinyarada u sameeyno especially East Africanka ilaa xaafadda sida Riverside Franklin iyo areadaas marka waxaan u shaqeynaa tiiman badan ayaa ka shaqeeya galabtii waxaan leenahay ciyaalka si aan uga wacyigelino drugska ama maandooriyaha ama waxyaalaha ay qaataan waa ka wacyigelinaa run ahaantii waxaan leenahay waalidiinta Metro Youth waa u jeedaan waa kana hadda maanta everything weyn baa la sameeyey soo qalqaaliyay council memberka Jamaal Cusmaan iyo dad badan oo kale oo community-ga ah waxaan leenahay waalidiinta waxaan leenahay nala soo xiriira Metro Youth wax badan bay idinka caawinaysaa ilmihiina dhalinyaradiina hadday shaqo u baahan yihiin resource fara badan aan u haynaa meelaha waxaan ku xidhnaa mataqaanaa rehabilitation-ka ayaan u dirnaa kuwii caamo u baahan waa support waaye waa awareness waa ogtiin dhalinyaradeena waa dhibaataysan yihiin waalidiinta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay
ilmihiinna ogaada. magacayga waxaa la dhahaa Axmed Muuse waxaan la shaqeeyaa Senior Linkage baan la shaqeeyaa Senior Linkage maanta waxa uu joognaa maanta barnaamijka oo dadka waaweynka inuu bixino dad waaweynka waxa qabanaa anaga waxa uu qabanaa markaas dadka housing u baahan yihiin oo sida transportation amal u baahan yihiin ba caawina oo dad waaweyn haddana kaarka caafimaadka dadka haynin iyo dadka oo insurance-kooda bixin karin oo mataqaanta caafimaadkiin iyo kaarka insurance-ka bixin karin kliniga waxaas baa dad caawina marka dad caawitaan u baahan yihiin numberkeen baa soo waci karaan oo numberka oo Senior Linkage-ka waa 80033322433 waa numberka haddana markaan ku soo celinay waa 80033322433 numberkan la soo waca Monday ilaa Friday joogna aroortii waxa ka shaqeynaa 8 in the morning ilaa galabnimo 4 iyo barka uu joognaa marka dadka caawitaan u baahan yihiin noo imo marka ala soo waco ala weydiyo Senior Linkage waxa qabanaa insha Allah saas in rajana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo wali xasan maamulaha hay'adda Riverside Plaza Tenant Association maanta waxaan isugu nimid kulankan ay organizationada non-profit-ka ay soo bandhigeen xaafadda annagu waxaan soo bandhignay tacliinta dadka waaweyn ESL programka oo Englishka la barayo waxaan kaloo soo bandhignay dadka shaqooyinka aanu geyno waxaan soo bandhignay also in aanu dadka ka saacidno wixii ay hadday u baahdaan in ganacsiga ay furtaan oo aan training siino marka ku soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Cali Abshir Ciise waxaa lagu naasaa Cali Ganay waxaan ka shaqeeyaa xafiiska xildhibaanada Ilhaan Cumar maanta sharaf bay noo ahayd inaan joognay Brian Coyle iyo xaafadda Cedar oo maaragtay xafiiskeena sida inii muuqata maanta maaragtay aan halkan dadka ugu ka caawinaynay arrimaha immigration-ka guryaha caafimaadka iyo wixii kale ay u baahan yihiin waxaan u mahadcelinayaa duqa degmada lixaad oo runtii isku soo dabariday marti qaaday xafiisyadan kala duwan ee dawladda hadday noqon lahayd city-ga iyo county-ga iyo number-of-yada kala duwan oo dhammaantood maanta halkan hadal ku ah runtii waxyaabaha naloo doorto waxaa ka mid ah inaan community-ga ka caawino shaqooyinka ay u baahan yihiin marka in adeegga loo soo dhoweeyo dadku oo ay fursad u helaan inay xafiiska la kulmaan oo maaragtay ilaa dhowr iyo 20 qof maanta hadda aan kiisas ka caawinay kala duwan marka aad bay sharaf noogu tahay waan ku faraxsanahay waa u mahadcelinayaa mar kale maaragtay duqa magaalada degmada lixaad oo maanta maaragtay isku dabariday in maaragtay intaanoo hay'adood iyo intaanoo xafiis dawladeed oo kala duwan ay halkan isugu yimaadaan aad baa u mahadsantihiin insha Allah haddii ilaahay yiraahdo mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono jimcada ugu dambaysa bil kasta xafiiska Ilhaan Cumar wuxuu joogi doonaa Brian Coyle iyo Cedar marka halkaas wixii aad u baahantiin la kaga qaban doonaa shaqaale luqadiina ku hadla jooga marka ka faa'iideysta insha Allah. Assalaamu calaykum.